tafaariikh hadhowna waxaan ii sheegaa asoo jamle marka hadda tafaariikhdan ku hormaraa warka farihiisan ku hormaraa warka maxaa kala haysto ama maxay ku dhacday qof walbo mas'uul laga dhigo qofka markii loo magacaabo mas'uul inuu asoo meelo badan tagi karo sida warka uu qorayo maxuu Itoobiya ugu hormaraa safarkiisa ugu horeeyo Itoobiya maxaas u tagaa mukusoo daceystaa mukusoo qaweystaa mukusoo neebsadaa sababta keentay qof walbo mas'uul laga dhigo saaka waxaan u anbaxayaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya halkaas oo aan casuumad rasmi ah ka helay dawladda Itoobiya waa dawlad aan daris nahay waa dawlad aan saaxiib nahay waa dawlad wax badan naga dhaxeeyaan waxaan aaminsanahay in badan oo dan ah iyo maslaxad ah ha noqoto mid nabadgelyo ha noqoto mid dhaqaale ha noqoto mid ijtimaaci ah oo dal iyo dad aan wadaagno ayaa naga dhaxeeya marka in xiriirka Puntland iyo dawladda Itoobiya meesha hadda joogay meel ka si fiican in la geeyo lana adkeeyo xiriirka nabadgelyo xiriirka ganacsi iyo xiriirka kale nagala dhaxeeya dalka Itoobiya aan u tagayaa insha Allah madaxda u sareysa dalka ayaan sarki doonaa waana soo laaban doonaa diinaha waqti aan dheerayn Stadio Muqdisho ama